kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka channelka Goobweyn Media qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah beesha caalamka oo wada dadaalo shirka afisiyoone la isugu soo celinayo madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka bulshada rayidka oo walaac ka muujinaysa xaaladda adag ee dalku u galay heshiis hordhaca oo laga gaaray colaadii Somalida iyo Canfarta maxkamad ka hor tagtay xiridda xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalkaasi Kenya oo ay degan yihiin dad aad u fara badan oo Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka channelka Goobweyn Media waxaana idin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto wakiilada beesha caalamka ayaa sheegaya inay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay shirka xirada afisiyoone dib isugu soo celiyaan madaxda muddaxileedkoodu dhamaaday oo dhawaan sheegay in shirku uu fashilmay war ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay wadaan kulamo ay ku doonayaan inay mar kale si anbaqaado dadaalada ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan ayaa saaxiibada Soomaaliya waxa ay wada tashi degdeg ah leeyihiin qaybaha kala duwan ee siyaasadda sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka iyo saamilayda kale ee muhiimka ah ee Soomaaliyeed si loo ogaado xulashooyinka si dhaqsalan ah xal loogu heli karo ismarawaaga isla markaana si dhaqsaal dib loogu noqon karo wada hadallada ayaa lagu yiri war ka soo baxay beesha caalamka ayaa u muuqata inaysan taageersanayn go'aankii ka soo baxay xukuumadda ee ahaa in uu fashilmay shirkii ka socday xirada afisiyoone bulshada rayidka ayaa walaac ka muujinaya xaaladda adag ee uu galay shirkii looga hadlayay doorashooyinka Soomaaliya iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in dawladda federaalka ay baahisay natiijo xumo ku aadan shirkaasi oo dadka Soomaaliyeed ay filayeen in is-afgarad laga gaaro khilaafka siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda dalka bulshada rayidka ayaa walaac ka muujinaysa xaaladda adag ee uu galay dalka qaasatan shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saareen iyaga oo wax lagu xumaado ku tilmaamay in dawladda federaalku ay baahisay natiijo xumo ku aadan shirkaasi oo dadka Soomaaliyeed ay ka quudaraynayeen in wuxuun is-afgarad ah uu ka dhaco isu taga bulshada rayidka Soomaaliyeed waxa ay walaac ka muujinayaan xaaladda adag ee shirku uu galay iyo eedeymaha madaxda Soomaalidu ay isku marinayaan saxaafadda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay bulshada rayidka waxay aad uga xun tahay in shirka looga hadlayay doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya ay dawladda federaalka baahisay 7 Abriil 2021 natiijo xumo ku aadan shirka iyadoo dadka Soomaaliyeed ay filayeen is-afgarad laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dalka bulshada rayidka waxay ku adkeynaysaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada in aysan shirka ku kala tagin lagana miro dhaliyo wada hadallada si loo xaqiijiyo mas'uuliyadda ka saaran madaxda sidii dalka doorasho ay uga dhici lahayd bulshada rayidka waxay ka soo horjeedaa wax kasta oo carqaladaynaya in dalka doorasho ay ka dhacdo waxayna u soo jeedinaysaa madaxda dalka in aysan ku dhaqaaqin tallaabooyin ka hor imaanaya dastuurka ku meel gaarka ah waxna u dhimi kara geedi socodka dawladnimada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka bulshada rayidka waxay ugu baaqaysaa duubabka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka culimo awdiinka waxgaradka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii heshiis dhab ah looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka heshiis hordhaca ayaa laga gaaray dagaalkii u dhaxeeyay dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba maamulka Canfarta ee dalka Itoobiya waxaa shir 3 geesood oo u dhexmaray dawladda federaalka Itoobiya labada maamul deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta oo ka dhacay wasaaradda nabadda ee dalkaasi Itoobiya waxaa shirka furtay hagaysayna wasiirka nabadda waxaase gunaanadkii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Toraabi Ahmed iyo labada madaxweyne dawlad deegaan ay soo wada saareen qodobo dhowr ah oo lagu heshiiyay dood dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobadan hoos ku qoran in la joojiyo colaadda ciidamada labada dhinac in ay ka durkaan jidka dheer ee laamiga ah ee isku xidha Awaash iyo Jabuuti oo ugu yaraan 10 kiiloomitir dhanka bari Soomaalidu ay uga durugto
halka dhanka galbeedna ay Canfartu uga durkayso iyo in qadiyada saddexda magaalo ee khilaafku uu ka taagan yahay in lagu xallin doono nidaamka sharciga ah inta ka horeysana ciidamadu qaranka ay sugayaan amniga shacabka magaalooyinkaasi isla markaana la baaro weeraradii iyo waxyeeladii shalay ka dhacday deegaanadii iyo meelihii ay ku dagaalamayeen labada dhinac waa Canfarta iyo Soomaalida in aan deegaamayn cusub la samayn karin oo colaad abuuri kara iyo in hay'adaha amniga qaranka bariba laga bilaabo ay tagi doonaan goobta isla markaana ay xaqiijin doonaan fulinta qodobadaasi lagu heshiiyay garsoore Kenyan ah ayaa hor istaagay go'aanka ay dawladda Kenya ku doonayso inay ku xirto laba xero qaxooti oo ay ku sugan yihiin 100,000 oo qof oo badankooda ka soo jeeda Soomaaliya sida lagu sheegay nuqul kamida amarka maxkamadda oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters laba toddobaad ka hor wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa shaaciyay in dawladdiisu ay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma waxa uuna siiyay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR laba toddobaad oo fursad ah si ay u soo gudbiso qorshaheeda ay ku daabulayso ama ay ku fulinayso go'aanka raridda qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma xukunka garsooruhu soo saaray ayaa hakinaya qorshaha dawladda muddo bil ah arrintan ayaa timid kadib markii siyaasiyiin maxalli ah ay qorshahan ka soo horjeesteen maxkamaddana ay ka codsadeen in meesha laga saaro tallaabada ay dawladdu ku doonayso in albaabada la isugu dhufto xeryaha qaxootiga Dadaab Kenya kiiska la xiriira qorshaha ay dawladda Kenya ku xirayso xeryaha ayaa bil kadib waxa uu dib ugu soo noqon doonaa maxkamadda xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya ayaa waxaa degan in ka badan 410,000 oo qof oo Soomaali u badan iyo tiro yar oo ka soo jeeda dalka Koonfurta Suudaan daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen channelka Goobweyn Media inta aan ku kulmayno warkan lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah